السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كنال كنا عم شكر قناة اليوم بلوجين محترف أو ستة سيد كسر قد بدونا حلقة العصب أو قصص في سن ديزاينينج. حلقة دينا ما توحن قصة قاعدنا برنامج كعانكا الليرة أو تبلاي ميديا ستوديو إنه استعمال دونا فيرشن 8 كيسة. مركب برنامج كم حيكون قصة دونا سوفتوير أين قصة دونا بدن كواحد الله استعمال برنامج كان إن القصة معيه إني ليسانسكا إني liisanada iyo lagu sameeyo in waxaan la yiraahdo listen termska oo kale ama warqada yar ee ku qoran tahay sidoo kale package-yada ayaa lagu sameeyaa wax lagu dhex qoraa software aad u fara badan waxaad ka soo download doontaa link khaas ah oo aanu baan ku dhigay oo maca serial numberkiisii wata Autoplay Media Studio 8 version-ka isticmaalna waa 8 halkan ayaad kasoo download garanaysaa kadib waa folder serialkiisii kusii dhex jiro iyo software-kiiba labadaba halkaas ayaad kasoo download garan doontaa waxaana kuu dhigi doonaa sida caadada ahayd videoga hoostiisa kadib intaynaan bilaabin ka hor markaad install garayso sidii caadiga ahayd next folder ku samayso desktop-kaaga new folder ayaad oranaysaa kadib for example waxaad u bixisaa software u bixi folder-ka markay samayno ood soo furaysaa barnaamijkii waxaad leedahay create a new project cusub samee kadib halkan aad ku dhufanaysaa blank project halkan waxaad u qoraysaa project-kaaga magaciisa magacaad u bixin doono tusaale ahaan waxaan leeyahay muxtarif software ayaan leeyahay kadib baan leeyahay okay kadib markuu sanadku soo baxo waxaan waa update isoo kacaya don't need it uma baahin update-kan kadib markuu saanku soo baxo warqad ayaa halkan kaaga soo baxday marka ugu horeysa project qabo kadibna setting siita kadib halkan waa large warqadaada waxaad ka dhigaysaa medium mid dhexdhexaad aad ka dhigaysaa halkan waxaad aragtaa window title macnaheedu haddii software-ka hadhow markaad samayso uusan oo kala daaqadiisu ay tahay windowdiisu aysan tahay magaca halkaa kasoo bixi doonaa muxuu noqon doonaa waxaan leeyahay muxtarif software ayaan leeyahay محترف software أما internet download manager marka barnaamijka soo kiciyo xagga sare waxa kaga qoran barnaamij kasta oo taqaana xagga sare waxa ka qoran let's say inaan word kan baa soo kicin for example marka window-gan soo kaco halkan waxa ka qoran document Microsoft Word kaas ayaa window title magaca ka soo bixi doona muxtarif halkan medium bay ka dhignay kadib okay baan leenahay warqadana medium noqotay okay warqadana medium markay noqotay background baan rabaa inaan sameeyno double click gare kadib waxaad tiraa use custom settings image ayaad kasii dooranaysaa browse ayaad leedahay halkan waxaa jira sawirro uu wato barnaamijku oo hore ugu sii jira oo hore ka isticmaali karayso laakiin haddii aad rabto inaad iska bedesho my computer baad tegaysaa halkan ayaad kasoo dooranaysaa sawirradii aad doonaysay laakiin anigu shakhsi ahaan kaas ayaan qaadanaya sawirka bluega ayaan qaadanaya kadib okay baan saa markaan u sameeyey software-kayga waxaan rabaa inaan soo dhigo 3 software oo simple ah aan soo geliyo 3 software ee simple ah ayaan diyaarsanayaa marka waan yara istaajinayaa videoga in yar hagaag waxay diyaarsan 3 software exe log haddii aan idin tuso exe logan iyo WinRAR 460 bit iyo WinRAR 230 bit saddexda barnaamij ayaan rabaa inaan ku dhexliyo package-kayga kadib waxaan tagayaa marka ugu horeysa objective aan tagayaa kadibna waxaan leeyahay button baan soo qaadanaya let's say button asaan ah soo doorto for example weliba noocaas ah midabkiisu okay baan leeyahay halkan ayaan soo dhigayaa for example bartaas ayaan soo dhigayaa kadib control and taabanaya mouse-kana waxaan sameynayaa copy ama waxaan leeyahay duplicate gare haddana 3 jeer baan duplicate gareeyay macnaha copy ka sameeyo meel la mid waad soo jiidaysaa halkana soo dhigaysaa hagaag waxaan haynaa 3 button oo lagu talagalay 3 software software-da ugu soo daray button-ka koowaad baan dul tagayaa waan double click gareynaya gudihiisa gelayaa waxaan ku qorayaa exe log ayaan ku qorayaa exe log dot exe ayaan ku qorayaa font baan tagayaa bold baan ka dhigayaa
fartiisana 16 baan ka dhigayaa. Okay waan leeyahay. Fontigana waxaan ka dhigayaa agency FB. Okay, highlightkiisa marka la highlight garayo green, clickiisa green, normalkiisa white, disabledkiisana white ayaan ka dhigayaa. Kadib okay baan leeyahay. Halkaa waxaa iga soo baxay magacaas ayaa iga soo baxay, laakiin 18 aan fartana ka soo dhigo. Haye ex waa barnaamijkii magaciisii waan ku qoray. Kan kalena waan tegayaa, waxaan kusoo qorayaa winrar ayaan leeyahay. barnaamijkan kalena fontigiisa waa bold, waxaan ka dhigayaa 18 fartiisa. agency FB baan fartana ka dhigayaa for example. kadibna okay baan leeyahay. kadibna highlightkiisana green baan ka dhigayaa. macnaha highlightkiisa waa marka mouse-ka la dulgeeyo kalarka soo baxaya, clickiisana waa marka lagu dhufto, labada kalena white baan ka dhigayaa. Okay, kan kale aan tegayaa, waan double click gareynayaa, waxaan ku qorayaa winrar ayaan leeyahay. kan 64 bit ayaan ka wadaa for example. rar kan waa kii 64 bitka ah, winkii lowlikii hore. highlightkiisa waxaan ka dhigayaa green, clickiisana waxaan ka dhigayaa green, labadiisan kalena white ayaan ka dhigayaa. fonti ayaan tegayaa bold iyo 18 iyo agency FB. kadib okay ayaan leeyahay. winrarkan kalena si loo garto isagana waxaan kasoo dhigayaa 32 bit ayaan ka dhigayaa. 32 bit kadib okay, winrar 32 bit iyo 3 barnaamij baan halkaa gelinayaa. Okay, waxaan tegayaa object button baan soo qaadanayaa. buttonkayga la dhisay aan yiraahdo adiga qurxin doona. mid white aan soo qaato for example, kaaba aan soo qaato. buttonkayga halkaa markaan soo dhigo waan yara kala jiidayaa, xaggana waan jiidayaa, waan double click gareynayaa. isagana waxaan ku qorayaa, waxaan rabaa cod inuu ii control play iyo pause ayaan ku qorayaa. play iyo pause. kadibna colorkiisa waxaan ka dhigayaa isaga red, clickiisana red, normalkiisana red, wada red ayaan ka dhigayaa. fonti ayaan tegayaa, sidii caadiga 18 baan ka dhigayaa. agency FB baan ka dhigayaa. kadib okay baan leeyahay. Okay, play and pause. hal button ayaa hadhay, object ayaan leeyahay. button ayaan for example soo oranayaa, waxaan rabaa page labaad mid igeeya, button igeeya page labaad in aan soo samaysto. let's say aan iska nahno kanba kalarka noocaas ay soo qaad. halkaas ayaan soo dhigayaa for example, halkaas ayaan soo dhigayaa. waan click gareynayaa, kadib waxaan ku qorayaa next. kadibna colorkiisana waxaan leeyahay nextga waxaad ka dhigtaa madow, kana madow, normalkiisana madow, clickiisana madow. fonti ayaan leeyahay, bold ayaan ka dhigayaa, waxaanan ka dhigayaa 18, waxaanan ka dhigayaa agency FB ayaan ka dhigayaa. for example, agency FB fartana aan 20 ka dhigo. kadib next way yartay, aan sii weynayo. fonti ayaan tegayaa, waxaan leeyahay 24. kadib okay ayaan leeyahay. kalarkiina waan kasoo dhigtay. hagaag, waxaan rabaa qoraal inaan halkan soo geliyo. qoraalkii waxaad tegaysaa halkaas, macnaha new paragraph ayaad ku dhufanaysaa. qoraal baa kuu soo baxaya, double click gare. kadib waxaad ku qortaa kusoo dhawow wuxuu darsi ku saabsan sida loo sameeyo software package ayaan leeyahay. for example, qoraalkaana white baan ka dhigayaa, sidoo kale white baan ka dhigayaa, normalkiisana white, clickiisana white. kadib center baan dhigayaa, fontigiisaan tegayaa, waxaan leeyahay 16 iga dhig, waxaad ka dhigtaa agency FB. hala yaabay farta waan jeclay, qoraalkeeda ayaan yara jeclay sida qormayso. for example, waa kaa halkaas ayaan soo dhigayaa. paragraph waan oran karayaa, double click gareyn karayaa, center intaad dhigto ayaan oran karayaa, waxaad qortaa welcome to Muxtarif. kadibna white ayaan dhigi karayaa. font ayaan tegayaa, waxaan leeyahay agency FB bold 18 ama ka yara weyn 26. kadib okay, ciwaan baan ka leeyahay welcome to Muxtarif.
hagaag imika waxaan rabaa in batonadan aan halkan soo wada dhigay oo ka dhan horta la dhisaynaana page cusub saan u samaynayaa page cusub aynu kusoo daranno for example waxaan tegaynaa page ay tegaynaa page bin tegaynaa add by line page cusub horta sidii caadi ahayd baad double click garaynaysaa gudihii page ka tegaysaa kadib waxaad leedahay use image browse sawirkii sawir lamida ayaa soo qaadaysaa ama sawirkii koobigiisii kadib okay baad leedahay lelisay kan qoraal kaliya iskaga qorno hello friends aan ku qoro oo kaliya lelisay saabanaano kadibna white aan yiraahdo white waxaan la degdegayaa waqtiga oo inagu dheeraanaya si aan 15 minutes uga dheeraan ayaan ku dadaalaynaa agency fp baan fartana ka dhigaya boardna aan ka dhigayaa let's say 28 kadib okay aan soo qaadayaa hello friends farta bartan kan dhigayaa page-ka one button ayaan soo qaadayaa waxaan one button page-ka hore ku noqonaya kan ayaan copy soo siinaya copy baan soo siinaya kadib page-kana nimanaya waxaan leeyahay paste ayaan leeyahay kadib bartiyo kala dhigaya one double click garaynaya kan waxaan ku qorayaa previous baan qoraya kadib waxaan leeyahay colorkana sidiisa ku daa previous ayay noqonayaan kadib waxaan rabaa batonadan button kasta shaqadu qabanaya aan ku xidhno kan wuxuu saddexdan marka lagu dhufto barnaamij bay inoo soo saarayaan kanna waa next ayuu inoo samaynayaa page-ka kale la geynaya kanna cod buu inoo socodsiinaya inoo istaajinaya kan double click aan idhaahno quick action baad tegaysaa quick action kadib halkan manta ayaa soo dooranaysaa waxaad leedahay run program baad ka shaqaysiinaysaa kadib fit to run file la run garaynayo browse baad leedahay waxaad leedahay computer u doono desktop-kayga u doono waxaad run garaysaa exe kaa magacaaga ku dul qoray kadib okay baan leeyahay kaa marka lagu dhufto barnaamijkaas run garaysaa kan kalena quick action waxaad leedahay sidoo kale run program browse baad leedahay desktop-kaagii baad tegaysaa waxa ahaa kan winrar 12 bit kii baan soo qaadanayaa kadib okay baan leeyahay kan kalena double click waxaan leeyahay sidoo kale quick action run program browse ayaan leeyahay desktop ayaa tegaysaa 64 bit ayuu ahaa okay baan leeyahay kan waxaan rabaa video cod inuu ka shaqaysiiyo macnaha marka package-ka la furo inuu waqti furmo double click isagana dheh quick action halkan ayaa tegaysaa waxaad ka dooranaysaa maanta play pause background music okay baan leedahay waxaa leedahay play and pause background music ayaa leedahay kadib waxaynu ka soo qaadanaa background music play multimedia leedahay cafwan iga raaleeyo play multimedia ayaad play garaynaysaa browse baad leedahay multimedia my computer kadibna waxaad leedahay desktop kadibna waxaad leedahay xayeysiis waa okay kaas inoo play garaynaya marka lagu dhufto isagana nextina shaqada uu qabanaya page-ka la geynaya quick action kadibna waxaan leenahay show page tus next marka next iyo previous iyo first iyo waxa ku tusaya next-ga doora haddii aad tiraahdo specific page la page 1 iyo page 2 aad ka dooran kartaa laakiin next waa fiican maadaama next kadib page-ka labaadna tag double click quick action kadibna waxaad tiraahdaa show page tus kana maanta waxaad tiraahdaa previous tus kadib okay page-keeni hore haddii ku soo noqono waxaan samayn karnaa website ayaan ku xidhi karnaa halkana double click garaynaa kadibna waxaan leenahay muxtarif.blogspot.com kadibna white baad ka dhigaysaa kadibna kadibna white ayaa leedahay center spellingkiisana agency ayaad ka dhigaysaa bold sawir kordhi kadibna okay kadib qoraalkaas halkaa inoo yaala halkan soo dhig double click quick action leh kadib waxaad furaysaa ayaad leedahay view website-ka http ka horreysay view website maynaan oran miyaa view website http waa website-ka laga horreysiiyaa kadib halkaa ku qor muxtarif.blogspot
.com ayaad ku qoraysaa kadibna okay dhe kadibna saas ayaad ku dhamaysay. haddaba waxaa la rabaa barnaamijka inaad soo saarto. haddii aad rabto inaad yar eegto halkan preview button la yiraahdo jira ama waxaad tegaysaa publish hoosteeda preview baa ku taala. preview markaad tiraahdo continue ayaad ku dhufanaysaa kadib waa kan barnaamijka play. Welcome to Abdi Shakur channel. laakiin dibintu u soo saarayaa kan markaan ku dhufto aan double click gareeyo barnaamijkii soo kicinayaa. kan markaan double click gareeyo barnaamijkii hore install gareeyo no ayaan yiri waa kuwa next markaan yiraahdo page kale tusay previous markaan yiraahdo halkaas ay ugu celinaya muxtarif software. haddii barnaamijka waxa la rabaa inaan ka dhigno mid flash lagu qaadan karo waxaan uga dhigaynaa waxaad tegaysaa publish kadibna bold ama buttonka yar halka banaanka yaala bold ayna kadib continue waa leedahay. waxaad ka dhigaysaa web email executable kadibna waxaad leedahay next kadibna halkan loading marka la baarayo maxaad soo qortaa waa leedahay waxaad qoraysaa fadlan yara sug ayaad soo qoraysaa encryption enable labadana saxaad saaraysaa encryption halkan waxaad ka soo dooranaysaa halkeed geynaysaa folderkaad geynayso folderkii aan samaysanay software waxaan u sameynay kan gelino kadibna waxaan leenahay waxaa la oranayaa muxtarif barnaamijka muxtarif.exe executable.exe halkan ka dooranaysaa save baa leedahay kadibna bold baa leedahay waa la dhammaynayaa waa la soo saarayaa close markaad tiraa folderkii wuu furayaa. hagaag shaqadan aad muddo inaad save garaysaa si aad hadhow ugu soo noqon karto save as dheh iyadana waxaad dhex geysaa folderkii desktopkaaga ahaa for example desktop buu ahaa software buu ahaa si gudagal software dhex geedhaysana ku save garaysa shaqadii hadhow dib aad ugu soo noqoto. barnaamijkii software markay tagnay marka hal barnaamij bay samaynay aan daawano barnaamijkeeni haddaynu dibadda usoo saarna barnaamijkii waa kan haddaynu barteen dibadda usoo saarna halkan soo dhigno marka la double click gareeyo fadlan yara sug baa soo baxaysa ayaan double click gareeyo fadlan yara sug intuu loading soo qori lahaa waa soo baxay kadib barnaamij baa inoo soo kacaya dhammaystiran inoo soo kacaya waa kan kadib windows 12 bit maan install gareeyo no kadibna kan kalena exe loo barnaamijkan maan install gareeyaa ay haddaan muxtarif.blogspot.com ku dhuftana website buu furayaa sadarto muxtarif buu furayaa. xalqadeena maanta si degdeg ah aynu erinay adigu videoga daadaawo isla markaana ku ciyaariyo markasta helaaw inaad ka soo boqoto website-keena www.muxtarif.blogspot.com iyo facebook-geena www.facebook.com/muxtarif. inta ku kulmi doona xalqadaha dambe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.